duhurnimadii maanta ayaa israsaasiin kooban waxa ay degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ku dhex martay ciidamada ammaanka degmadaasi iyo maleeshiyaad diidan habka loo dhisay golaha deegaanka magaalada Baraawe. Israsaasiinta ayaa waxa ay si gaar ah uga dhacday banaanka hotelka Nadiir halkaas oo ay ka socotay doorashada golaha deegaanka, waxaana inta la xaqiijiyay israsaasiinta ku geeriyooday hal qof halka uu ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidanka nabad sugidda ee ka howlgala degmadaasi. wararka ayaa waxay intaa ku darayaan inay hakatay doorashada golaha deegaanka degmada Baraawe oo shalay bilaabatay kadib israsaasiinta maanta ka dhacday degmadaasi. dadku sugan degmada Baraawe ayaa risaalo waxay u sheegeen in goobta doorashada ay ka socotay ay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa amisom ee degmadaas ka howlgala, isla markaana ay la wareegeen si halkaas ay uga dhacdo doorashada golaha deegaanka. israsaasiinta maanta ka dhacday degmada Baraawe ayaa ku soo aaday xilli maalmaha magaalada ay ka jireen tabashooyin ka dhan ah golaha deegaanka oo ay muujinayeen qaar ka mid ah beelaha degmadaasi Baraawe.